qofkaas yimaada laba mid ay noqonaysaa ama qofkaas waa ku ceeboobaya ilaahay waa ku ceebeenaya oo ceeb iyo fashil iyo kala kulmaya qof awal iska qarsoon u ahaa oo dadkiisa ku dhex jira banaanka markuu soo baxo oo hawsha ku fashilmo oo ku ceeboobo qofkii wuxuu noqonayaa qof xaqiiqdii ummadda ku cambaaraysan yuu noqonayaa annagana waxaan bilaabaynaa qofkii inaan inkaarno oo aan niraahno ilaahay kan hanan dhaafiyo islaana dawyo ilaahay yaqaano rasuulka maxamed oo meel ku leeyahana ilmaanaga noo keen haddii uuna noo keenin dhul gariir ha ku dhaco ilaahay ka barya aduuna noo keenin dhul gariir ha ku dhaco anagu waa bastay anu ma hadli karo caawa madaxweynihi caawa rayla wasaarihi caawa xogaydahagu islaan manihin miya yaa ummadda nabi maxameda waa waray waa la adnay waxaan leeyahay dhaqaalaad siisatay ay dhulka kula dhaqaaq maxaa tabqaado oo kitaabkaaga midi ka tuur cudurka kaan karana caafimaad lagugu sheeg dhacda xanuun badanna dhinacaaga lagu abuur alloob dhibso ka heeya iyo hoy dhiig islaanku geli ما ربنا فرماجة ما دونينا فرماجة عبار قبل لغو سر مواي ما ربنا فرماجة عيالكaygi meelku ma sheega meelku ma ogi habeen mahar gala maalin mahar sala ciyaalkaygi meel alla igu sheego ilmaan caruur baa naga maqan ilma baa naga maqan caruur baa naga maqan dawladda waxaan ka codsaa wiilkaygi anay nolol iyo geeri iigu soo baahiyaan